وحكسته وأقول القاطع كسته منك يالنا ولقي دق مشيبه وما أرتوا أسكت القاطع وهم كأدون كانوا قدبا ولو أتحامى hooyada dhashay Axmed Kheyr fanaankii hore ee Axmed Biif oo mar labaad soo hadashay ayaa sheegtay in ninkeeda dhibaato kasta uu u geysto ay iska aamusto isla markaasna ay sabarto sidoo kale muuqaalka gudihiisa kaamirada waxaa la arkayaa ninkan oo maamada u gacan qaadayo waxaan kula wadaagi doonaa muuqaal gaaraya 5 daqiiqo oo ay maamada ku xaqiijin doonto wiilkeeda waxyaabihii uu ka hadlay oo dhan in ay ahaayeen wax sax ah fadlan daawada muuqaalka noo taaba laagta sidoo kale فيديو سي شرقري واد مهدسنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام أمد الصومالية من البيس ردان سلام الإسلام كسنكلات سياسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت واحد جوا هو يا حبيبي أول شيء أحمد زيف أحمد خير الله يقانو هذا اللي تدرى له هذا وهذا الصح وهذا جدا هي معمول يكون هيتو يحب البؤ الآن ninkan oo dhinacayga suran waa adeerkiisa laxama oo hooyadiisa qaba ilmahan aad u jeedaan waxa dhalay walaalkiisa oo waalan hooyadan baahay ku jirta dhawaatay ku jirta marka waxaan ka tabanaynaa inaan hooyadan iyo ilmaheeda wax u qabto hadii kale ummadda Soomaaliyeed inay wax u qabtaan ay u daayo hadal badan xamu buuxsho hadda waxa u dhiibaya ama aan la hadlaysaa hooyo macaan oo Axmed hooyadiisa hooy waxaad u sheegaysaa wiilkaaga inuu waxay isaga u sameeyay oo xaalay laga yahay laakiin loo baahan yahay in hooygan idin ka bedelo gaajadan dhibaatada gurigan wiilkan yariiska oo wiilkan asaylaha lagu nool yahay asayladana guriga ku biila walaalkii kale wuu waashi adigi waayel waay nool waay ma shaqaysan karo dadku oo waxay u soo siiyaan dariska aniga darisa lahayd nimanka gaarsiya TV lahayd qalad kamala ana u yeer ana daris la ehelada cashiirka dariska lahayd ana u yeer marka hadana dadkaasna wax dhiban meeshan uma keenin marka waxa uu wareejinaya maamada hooy la hadal wiilkaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هوي معاه aniga baahigeygi baa tahay aniga ma arka marxaladda hadda i hayso awgeedan baan u hadlay mahe hooyo xumaanku uma qabi aniga beerkaygii baa tahay hooyo aniga dhabarkaygii baa tahay aad iyo aad baan kuu jecelahay adduunka iyo aakhirada ku noolow haddii adduunkana ku noolow aakhiradana jannada unbaad dabaalanaysaa aniga xaggayga waxba kuuma haysto waqdudna kuuma qaadayo weligay allahay ciddii ma aragtay oo ku dulmisana ilaahay raalli kama aha hooyo aniga ha isqududayna ha isciilin adduunka intaad ku nooshahay aniga waa dulqaad badanaa hooyadii ku dhashay macaaneed baan ahay hooyo wax kasta waa ku dulqaataa dib kasta oo ninkayga yeelana weligay dad uma sheego oo maaragtay waa iska dulqaataa wadanka adduunkaa lagu dhibaa oo lagu ataxaamaa ataxaamku waa maaragtay rasuulka suubana salawaatullahi calayka ayaaba ataxaan soo maray annaga hadda waa u dulqaadan karnaa waxaan waa adduun laga dhigaayo oo marti lagu yahay hooyo المهمة أن كسوق قبنا أنا وحنا نباهنا هاي ميركي مصلحة لو جرا إيو هاي هدان بنتو ليقو آسو أدي بنتنا ما أرتلي إسيحيو وما أرتلي قاتمة بانا هاي قاتمة دي دعوة إذا واضح مبارسطي هدان واكو قدينا يا دعوة خير بادكو هلايسا مكي مدينو لدوافي باب نقونيسا أنا نبايت أبان قوري كرهبا قوري غاس إناد إيه حبايسو oo ii hagaajiso oo si hanaanga igu dhisto oo ducadayda taasa ka dhiman haddana waxaan ku leeyahay baahigayga aniga wadnahaygaad ku taashaa qofkuu gafaysana ma ihi hooyadii ku dhashay oo macaaneed baan ahay hooya diinsoorbaad iigu imaaday wax adii aad sheegayso dhanna waa wax dhacayna gadaal looma raaco say ku noqotayna lama dhaho hooyo macaan hadda waxaan rabaa aniga دعوة وحي أنا أرجع oo aad ku xumaatay ku raali ah boqolkiiba man afarta ay ka quraanka saban kaaga xir oo macaan meel aad joogto ku naalo oo nimco ku hel waxa dhashayna baari Allah kaaga dhiga muslimkan hooyo aab Allah kaaga dhiga haddaad wax ii heli karin walaalahay الله وبركاته مسلمين السلامتي والسلام بعد الشيء حاجة أحمد خير iyo adduunka caalamka muslimiinta jooga ayaa salaan gaar ahaaneed guud ahaan yaa andiri alxamdulillahi rabbil caalamiin horta wadaadka reerka lahaay anagu axmedow wiilkayga tahay alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaad adiga horta noo tartay
إلهي أبال كذا آخر يوم القيامة ميسانك الله كعقب مكوج سارة إيمانا قفين كلش أنا قاعد طعم ضغطي ما قلت وأنا نتكل أنا هسه أهاته وحكست بالشيء أو فيديو كان يسوي لي أفكار كست يسوي درتي كم همي وحتى إنا ونم ذي ذاتها شيخ أنا تحاجة إنا تح إنا سراد إلهي بتكل ما يالت هذا وقم بهمانين إنا إيجوا وسيد والله باهنا حتى يدل أنا قاعد ويك درس كان ماشي كهلاي ما أنا كان كوسو دوبيني لور بريسة أكثر أو $8 رجال إنك إسيء واي إدي دبك وشبل هسه ما أنا كده ما واجد تيجوري مركزني أسيان كبار مرة ما أسيا أنا مسلم نبأ نما ولا لي أنا وعيد كان ويك جهدي سب كان يوتر مرك على حاصل أحمد والدنيا آخر أنا هتروح بكون ما هيست ما أنا وحندي يست عالم كأدونك المسلمين تلو عيدنا ولا لي أنا في الدوم ولا أنا كعربة أنا إن طالع نقطة ساعة وجد بعني هو إذا أنا أشوف رب سني أنا أشوفنا هذا الفيديو جي بدر هذا قاعد دبي لأن يرى وقت صبوري شيخ أندرس كائن أو أبتكار أيها إلهم بدي مركز في رواية وأمرنا بعد مرسى ده أصير بيل إيوهاي بيها نايجو شوية مركز بيلكي إسهم وي ساسا أشوفنا حتى نرحل نرجعه هاجيو الدنيا آخر وابكم معسى في الدهم بدنا إن عندك كأسرة حر ما كود عيني حتى نواكود أولي آخر كالله بس sida aad wada maqasheen daawadayaal ama aad ku wada aragtay muuqaalka gudihiisa inta ay maamada duubaysay muuqaalka odagu waxa uu isku dayayay in uu markaas codka ka joojiyo maamada si markaas ay hadalka ugu dheeraan oo wuxuu isku dayayay in uu markaas gacanta ka jiido ama uu hadalka ku celiyo wiilkeeda wuxuu uu sheegay dhan waxa ay xaqiijisay in ay xaqiiqo ahaayeen oo maamadu dhibaato ay ku jirto ayaan dareemi karnaa sidoo kale maamada wiilkeeda ayada oo u duceynaysa ayuu ninkan waxa uu leeyahay wiilkaaga waxa dhahdaa ii gad boos oo baydhabo boos iiga gad hooyadu boos marnaba kuma soo dhicdeen laakiin ninka ayaa ku qalqaaliyay asiga oo garabka jug ka siinaya in wiilkeeda ay u sheegtay in boos loo iibiyo hooyadu waxay noqotay dherega laba dhinac ka gubta waayo wiilkeeda waxa uu yiri markii ay hooyada ila joogtay aad bay u qurux badneed laakiin dhowr jeer baa la soo wacay oo caruurtii ay dhashay iyo kubii ay sii dhaleen iyo ninkeedii ayay ku noqotay marka hooyadu haddii wiilkeeda Axmed ay la joogto waxay tabaysaa caruurteedii kale iyo xaajigeedii haddii xaajigii iyo marka caruurtii kale ay la joogtana daruuftan adag aad u wada jeedaan ayay ku noolaanaysaa marka laba darar mid dooro ayaa meesha ka jirto marka waxaan leeyahay ilaahay khayrka ha waafajiyo laakiin maamadu waxaan dareemi karnaa in ay dhibaato culus ay haysato waliba ninka xagiisa oo maamadu waxa ay tiri adduunyadu waa iska imtixaan miiran oo imtixaan kasta aan soo mar waan u sabrayaa ama waa iska aamusayaa aad baa idinku mahadcelinaya asxaabay muuqaalka noo sii share gareeya sidoo kale fiidiyowga ha iloobin inaad like dhac ku siiso waad mahadsantihiin si aan markasta niigu soo gudbiyo muuqaalada cusub aan soo geliyo nala joog waad nii mahadcelinaya sidaas ii nabadgelyo